Magacaybe ayaan ku bilaabaynaa casharkeena 107 ee barashada afka Turkiga. Ders 107 casharka 107 ev guri ve iyo oda qol. Maanta waxaan ka hadlaynaa arrimo la xiriira guriga iyo qolka. Markii la wada sheekeysanayo bir diyaloog waa sheekeysi. Eviniz büyük mü? Gurigiinu ma weyn yahay? Eviniz gurigiina büyük mü ma weyn yahay? B. Evet ha. Evim oldukça büyük. Gurigeena wuu weyn yahay. Weliba si aad u weyn yahay. A. Kaç odanız var? Meeqa qolaa ku taalo? Gurigiina meeqa qol uu leeyahay ama meeqa qolaa ku taalo? B. 3 odam var. 3 qol ayuu leeyahay. Bir oturma odası qolka fadhiga, bir yatak odası qolka jiifka ve iyo bir çalışma odası iyo qolka shaqada. Qolka holaha lagu qabto. B. 3 odam var, 3 qol uu leeyahay. Bir oturma odası qolka fadhiga, bir yatak odası qolka jiifka ve iyo bir çalışma odası qolka shaqada. A. Odanızda neler var? Qolkaaga maxaa yaalo? Odanızda neler var? Qolkaaga maxaa yaalo? B. Bir yatak, sariir ayaa taalo waaye. Bir masa, miis, bir sandalye, kursi ve iyo bir dolap var. Qolkayga waxaa yaalo bir yatak, sariir, bir masa, miis, bir sandalye, kursi ve iyo bir dolap var. Bir dolap maxaa marka dolap waa qaanada oo wax la gashto, armaajada wax la gashto waaye. A. Odanız çok güzel görünüyor. Qolkaaga wuxuu u muuqdaa mid aad u qurux badan. B. Çok teşekkür ederim. Aad baad u mahadsantahay. 2. Önemli kelimeler kelmadaha muhiimka ah. Ev, guri, oda, qol, yatak, sariir, masa, miis, sandalye, kursi, dolap, armaajo ama qaanad, pencere, daaqad, kapı, albaab. 3. Boşlukları doldurun, meelaha bannaan buuxi. Meesha wax ka maqan waa sheekaysiga ku soo bartay büyük mü? Bir yatak, bir waa ogtahay soo raadi ku soo buuxi ve bir dolap var. Çok ederim. Mahadsanidin, teşekkür ederim. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysteen. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada.